soo dhawaada channelka naga socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka fadlan subscribe inoo saar waxaan falanqeyn doonaa wararkii ciyaaraha asxaabta soo dhawaada wararkii ciyaaraha ayaan falanqeyni doonaa halkan la socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo saar aan ku socono horyaalka Premier League ee war inaga hayna runtii ayadoo ognahay in maanta la ciyaari doono ciyaaro badan Britain ay tahay ciyaartii kulleed ee hadda lagu sugayo kooxda Chelsea kooxda Arsenal ee London Derby sidoo kale waxa war inaga hayna xaaladda kooxda Arsenal oo runtii la sheegay in ciyaaraanka qadka dhexe ee ciyaaraankii hore ee Real Madrid ee Martin Odegaard saxiixiisa muxuu ku soo kordhin doonaa kooxda Arsenal sidoo kale Chelsea oo dhoon ka diyaarsan wuu ciyaaraanka reer Mareykanka ee Pulisic runtii laga helay cudurka COVID-19 sidoo kale Arsenal soo saxiixatay goalkeepihii hore ee Sheffield United sidoo kale aan ku socono runtii ciyaarahana suuqa iibsiga ayaa war inaga hayna xaaladda Aubameyang ciyaari doona ciyaarta Brito Arsenal ay la kulmayso dhigeeda kooxda Chelsea iyo dhaawacyada cusub ee soo wajahay kooxda Real Madrid aan ku socono Brito oo axad ah runtii waxaa jiro ciyaar aad u kul ee London Derby kooxda Chelsea iyo kooxda Arsenal yaa ku kulmi doona runtii ciyaari doona ciyaar kamid ah horyaalka Premier League labadan kooxood ayaa runtii ciyaarta aad loo sugay isbuucan oo ana ciyaarta oo kulul ee dhacayso isla isbuucan sidoo kale kooxda Arsenal ayaa runtii aad u xiiseynaysa inay arkaan deerki qadka dhexe ee Real Norway hadda kala saxiixdeen kooxda Real Madrid ee Martin Odegaard in uu runtii lagu soo bilaabo ciyaartan Chelsea laakiin Arteta hoosta ka xariiqay in ciyaaryahanka Real Norway Martin Odegaard uusan ciyaari doonin Brito sidoo kale Arteta ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay adag tahay in Odegaard lagu arko garoonka maalinta axadda ah ee wajahayaan dhigooda Chelsea taageerayaasha Arsenal ayaa la dhacsan in oo aaminsan Martin Odegaard inuu wax badan ku soo kordhin doono kooxda Arsenal asagoo ognahay ciyaaryahankan Real Norway in runtii ku soo biiritaankiisa kooxda Arsenal ee horyaalkii hore dhexdiisa ugu soo biiray kooxda Real Madrid qaab amaah ah runtii 20 kulan oo u saftay kamid ahaa ciyaaryahanadii ugu saameynta badanaa asagoo runtii intii yarada uu joogay Mar Stadium taageerayaasha Arsenal aad ula dhaceen Arteta ayaa aaminsan in Odegaard uu yahay mid ku bedeli doono Mesut Ozil sidoo kale kooxda Arsenal waxaa la sheegay in kabtankooda Aubameyang uusan runtii calaamad su'aal saaran tahay Brito inuu ciyaaray in kale Aubameyang waxaa ognahay in ciyaartii hadda ugu dambeysay Arsenal laba eber looga badiyay Brentford uu ka maqnaa garoonka asagoo runtii calaamad su'aal saaran tahay haddana waxaa la sheegay in tababarka si fuul ugu soo laabtay walow runtii ciyaaryahankan runtii la xiriira in Brito adag tahay in ciyaarta uu si fuul ugu soo bilaawdo ayaa haddana ku xiran tahay go'aanka ugu dambeeya gaari doono tababaraha reer Spain Arteta sidoo kale kooxda Chelsea ayaa runtii waxaa la sheegay in ciyaaryahanka dayarka reer Mareykanka ee Pulisic runtii lagu sheegay in laga helay cudurka COVID-19 asagoo runtii ciyaarta axadda misgarin doona ciyaaryahankaas reer Mareykan ayaa runtii tababaraha Tuchel ayaa sheegay in ciyaaryahanadiisa kale ay diyaar u yihiin halkii laga cabsi qabay Lukaku inuu ciyaarta ku soo bilaaban doono waxaa moodaa in Chelsea ay dhan walba ka diyaarsan tahay Brito waana aaminsanaa in Arsenal runtii ay mari doonto imtixaan aad u adag ayadoo guuldarro adag kala soo kulantay Brentford ayaa haddana waxay noqonaysaa inay la kulanto kooxda Chelsea oo dhan walba ka diyaarsan na ognahay inay guulo ku furteen horyaalkii ciyaartii ugu horeysay horyaalka Premier League Chelsea Arsenal ayaa runtii sadaash laga bixiyay qaybada Sky Sports ku sheegeen in kooxda Arsenal 2-0 looga badin doono ayagoo runtii isla bardhigay awoodda labada kooxood ayaa waxaa moodaa in Arteta runtii dhulka la dhigi doono Brito sadaasha laga bixiyay horyaalka Premier League runtii wariyahanada aad ku qiimeeyay ciyaaraha Sky Sports ayaa sheegay in runtii ciyaarta hadda dhici doonta Arsenal iyo Chelsea ee adag tahay in Arsenal ay dhibco halkaas ka qaadato ayagoo runtii saadaaliyay in kooxda Chelsea ay badan doonto ayaa haddana waxaan ognahay in Arteta taasi uusan yeeli doonin runtii dhan kale aan ku socono Arsenal soo saxiixatay goalkeepihii hore Sheffield United ee Ramsela dayarkan goalkeepaha ayaa wuxuu runtii noqon doonaa bedelka goalkeepaha reer Germany ee Leno ayaa runtii lala xiriirinaya in ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan Arsenal oo si official koox Arsenal ugu dhawaaqday Arsenal waxa ognahay goalkeepaha kaliya haysteen inuu ahaa goalkeepaha reer Germany ee Leno
oo runtii waqti aad u qurux badan kusoo qaatay garoonka Emirates Stadium ayaa waxaa moodaa kadib ka tagitaankii kooxda goalkeeper reer Argentine Martinez uu ku biiray kooxda Aston Villa inay Arsenal u dhibaatoonaysay inay hesho bedelka Leno. goalkeeperhaas runtii Martinez ee reer Argentine ayaa aad looga eedeeyay tababaraha Arteta inuu ka diray Emirates Stadium asagoo ognahay in muddo 10 sano uu joogay garoonka Emirates Stadium kooxda Arsenal. yaa waxaa moodaa markii la gaaray waqtigiisii runtii la siinahaa fursad Martinez inuu waayay uuna go'aansaday uuna qaatay go'aan ah inuu helo koox uu ka heli karo boos joogtaha uuna ku biiray kooxda Aston Villa uu wacdar ka dhigay. goalkeeper reer Argentine ee Martinez ayaa runtii taageerayaasha Arsenal aad u jeclaan inay kusii arkaan inuu sii joogo garoonka Emirates Stadium, laakiin Arteta ayaa hoosta ka xariiqay in dooqiisa koowaad uu noqon doono Leno, taasoo ku qasabtay in Martinez uu u guuro Aston Villa. asagoo ognahay in koobkii runtii ay qaadeen xulka Argentina oo la siiyey goalkeeper ugu fiicnaa micnaha koobkii oo America ay ka socday ay ku kulmeen dhigooda Brazil. waxaa moodaa goalkeeperhaas inuu ka mid ahaa goalkeeper ugu fiicnaa xulka Argentina oona qaatay bilada ah goalkeeper ugu fiicnaa. Martinez ayaa runtii aad loo qiimeeyay, runtii shabaqiisana ka ilaashaday Argentina u horseeday inay ku guuleysato koobkaas oo in muddo ah Messi uusan ku riyoonin. Arteta aad looga eedeeyay inuu diray Martinez waqtina ku qaadatay inuu u helo bedel Leno. ayaa hadda waxaa moodaa in goalkeeperhan ay kala soo wareegeen kooxda Sheffield United uu noqon doono bedelka Leno. aan ku socono suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada. weli waxaa miiska saaran dayarka France Mbappe iyo dayarka reer Norway iyo Haaland ayaa miiska saaran ayagoo aad loola xiriirinaya in kooxda Real Madrid runtii ay ciyaaryahannadan ay si rasmi ula wareegi doonto, ayadoo runtii la sheegaya weli laakiin in kooxahooda ay ku dhagan yihiin aysan rabin inay fasaxaan. Paris ayaa hadashay oo sheegtay in Mbappe runtii uu ku dhameysan doono qandaraaskiisa hadda uu haysto kooxda Paris uusan la gadi doonin, taasoo macnaheeda ka dhigan in haddii qandaraas cusub ay ka siixin wayso in Mbappe runtii uu si xor ah uga tagi doono, asagoo runtii lala xiriirinaya in kooxda Real Madrid uu aadi doono. sidoo kaleeto dayarka reer Norway Haaland ayaa asagana runtii aad loola xiriirinaya inuu ka guuri doono kooxista Dortmund, asagoo lala xiriirinaya horaan Chelsea, Man City ayaa la xiriirinaya, Manchester ayaa la xiriirinaya, sidoo kaleeto Paris ayaa la xiriirinaya ciyaaryahankan in walow runtii hadda Real Madrid noqotay kooxda ugu horeyso. laakiin warar kale kasoo baxay dhanka Germany ay sheegay in ciyaaryahankan uu ku biiri karo kooxda Bayern Munich oo aaminsanahay inay haystaan Lewandowski naftiisa ayaa la xiriirinayay in uu runtii soo aadi doono horyaalka Premier League, asagoo ognahay in kooxda Man City Guardiola ay haysanin wariyahan ayaa aad loola xiriirinaya in Lewandowski runtii uu soo guuri doono naftiisa horyaalka Premier League oo hadda noqday horyaalada ugu adag 5 horyaal ee qaaradda Yurub. aan ku socono kabtanka Aubameyang. sida hore inii sheegnay Brito calaam su'aal ayaa saaran ciyaaryahankan Aubameyang inuu runtii kusoo bilowdo ciyaarta Chelsea, walow aan la hubin Arteta ayaa gaari doona go'aanka uga dambeeyo. Aubameyang ayaa waxay ognahay inuu ka maqnaa ciyaartii Brentford looga badiyay kooxda Arsenal 2-0. Aubameyang ayaa runtii aad loola xiriirinaya inuu ka tagi doono kooxda Arsenal, asagoo la xiriirinaya inuu kooxda Barca aadi doono. ayaa Arteta ayaa hoosta ka xariiqay inuu ceshan doono waryahankiisa uuna sii joogi doono Emirates Stadium, asagoo ognahay in qandaraaskiisa uu saxiixay sanadkii hore ay ka dhiman tahay muddo 3 sano. aan ku socono dhanka Real Madrid Spain. kooxda Real ayaa runtii wajahaysa dhibaato, ayadoo ognahay inuu ka maqnaa Toni Kroos qadka dhexe ah. haddana waxaa moodaa in Modric uu dhaawac soo gaaray shalay, taasoo runtii tababaraha Ancelotti walwal kusii abuurtay adkaan doonto inuu helo bedelka, asagoo ognahay in Odegaard lagu xamanayo inay sii haysan doonaan kadib dhaawacii Toni Kroos ay isfasaxeen. hadda waxaa moodaa inay u dhibaatoonayaan Real Madrid qad dhexe inay runtii helaan. Real Madrid ayaa la sheegaya in Ancelotti runtii uu soo wajahay dhibaato aad u badan, ciyaaryahan ka maqan qadka dhexe Toni Kroos, haddana waxaa ku darsan Modric oo ka mid ah halbowlayaasha ay ku socoto kooxda Real Madrid. halkan sotaan waa macluumaad channel. haddii tahay markuu horeysa channelka fadlan subscribe.